celiso صح ها لما كون يصدق laba kun iyo soddonka okay Soomaaliya maxaa sidan u galay Soomaaliya waxa sidan u galay oo root-ka wax walba root bay leeyihiin ay ka yimaadaan the origin of the issue ay ka soo bilaabatay kadibna ay ujeedo badan yeelatay waxa weeyaan 91kii wadanka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho wixii ka dhacay waxay effect ku samaysay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ayay effect ku samaysay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed effect bay ku samaysay impactigaas marka maalintaa dhacay 91kii wuxuu uu keenay in la helo wax la yiraahdo lahaanshiyo kelmadeeda u fiirsada lahaanshiyo keenay Muqdisho 91kii ka hor waxay ahayd magaalo madax Soomaaliyeed dadka koonfur jooga ma ay aqoon wax la yiraahdo unuka iska leh iyo mahaygi waay aragtida ku base garaysnayd Muqdisho inay tahay magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed qofka qabiilka kale ee jooga ama tagayana wuxuu arkayay gurigiisii kale meel kastuu ka yimaado 91kii waxaa bilaabatay wax la yiraahdo ciid in la isu taabto hadalka waxa weeyaan haddii la subko oo subag la dul mariyo hoostana ay milil jiifo subagaasi dhadhan badan ma yeesho muddo badana meesha ma sii saarnaan karo waxaad marka reerkii Daarood Ismaaciil waxa ay fahmeen koonfur marti inay ku yihiin anytime-na magaaladan Muqdisho aanay ku sii noolaan karin taasi saani u dhicin marka waa fikrad abuurantay fikrad iskuul ka soo baxday maaha fikrad la isugu qudbeeyay maaha qof walba meeshuu taagan yahay bay fikradan ugu dhalatay fikradani mid qabiil ka yimid maahan oo ideology qabiil qaba ma yahayn qof walba meeshuu taagnaa bay fikradani ugu dhalatay halkiibuuna action ka qaaday inuu tago magaalo uu isugu leeyahay oo aan ka qaxin inuu tago hantidiisana dhigto caruurtiisana geysto taasi waxay keentay kala miiran wax la yiraahdo Soomaali inay kala miiranto waa cudurka bilowgiisa in la kala miirmo bay keentay oo Daarood dhulkiisa tago oo Isaaq dhulkiisa tago oo waxaan ku yiri koonfuri dhulkeeda tagto kala miiran baa yimid qabaa'il baa yimid tension buu noqday marka qabiilkii tension buu noqday okay wixii 91kii dhacay lagama heshiin Soomaali sidii adigu markuu Cabdullaahi Yuusuf joogay iyo Sheekh Shariif iyo dib u heshiisiin Soomaaliyeed baa laga hadli jiray in Soomaali loo sameeyo wax la yiraahdo dib u heshiisiin miiska la isugu keeno Soomaali ay xisaabtanto waxba isaga maqan wixii ay isaga maqan ay ka xisaabtanto dabadeedna ay tanaasulaad isu garaw iyo wixii ay markaa ku kala maqnaa wixii markaa la tangible oo la hayo lagu kala biskoodo taasi Sheekh Shariif kadib dawladdii marka ay ku meel gaarka ka baxday fikradii ayada ahayd ku meel gaarnimadii bay la dhimatay way dhimatay halkaas ku dhimatay horaa looga socday waa cudur meeshiisa yaala iyo tabasho meesheeda taal ko ninkliya faroole isagoo ka duulaya fiiri kala miirankii iyo dhibaatadii 91kii wuxuu sameeyay wax la yiraahdo dastuur road map oo Soomaalidu federalism ku qaadanayso federalism kaasi base-tigeedu wuxuu ahaa Soomaali nin walba qabiil walba inuu gurigiisa tago oo gurigiisa maamulo oo gurigiisa
iska soo doorto dowladdan federaalka ee dhexana delegation loo soo dirto oo aan lagu habsaamin micnuhu kaasuu ahaa federalismku kaasuu ahaa iyadoo laga ordayo mar dambe muqdisho inaysan noqon central government soomaalidu mar dambe ay traabkan ku dhacdo hoolkan ama traabkan ama ay ku dhacdo oo mar dambe xasuuq dambe uuna ka dhicin oo lagu xasuuqin dad masaakiin oo innocent inaan lagu xasuuqin taasaa waxaa keentay marka federalismkii halkaa inuu ka bilaabmay kadib uu bilaabmay wixii la oran jiray ka horna 4.5 markii Soomaali isu iman weyday waad xusuusataan 19 shir Afrika in loogu qabtay 19 shir baa loo qabtay in Soomaaliya isu timaado oo mar labaad dawlad loo sameeyo inta maxay ku kala ordayeen waad ogeydeen meesha la fadhiistay inta goor oo la fadhiistay oo Afrika gudaheeda noo fadhiisatay inta waxa la isla fahmi waayay dawladii maamulka sidii loo dhisan lahaa federalism in la sameeyo xasuuqan xaguu ka bilaabmay maxaa looga jawaabay muqdisho magaalo madax Soomaali ma noqon kartaa agahaas ayaa qalinkii iyo buuga loo sitay adduunyada waxay garatay marka bal at least dawlad ku meel gaar ah meel waxa laga bilaabo dawlad ku meel gaar ah la dhiso dabadeedna dib u heshiin ummadda Soomaaliyeed la dhex dhigo dib u heshiintii waa laga tanaasulay xamar bay ku dhimatay xamar bay ku aasan tahay dib u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed in loo sameeyo tabashadii ayada ahayd iyadoo la qabo ayaa marka federaal ku yimid adduunyadu marka 4.5 waxay noogu samaysay is aamin la'aantii 91 ka dhacay 4.5 kan adduunyadu naguma qasbin dad baa waxay yiraahdaan adduunyada nagu kala qaybisay naguma kala qaybin wax kale oo laynagu heshiisiyay markii la waayay ayaa la yiri qabiil wax ku qaybsada marka 4.5 federaalkii baa ka dambeeyay anigu waxaan aaminsanahay federaalka inaynu ku yara badbaadnay okay maamulkii la sameeyaa waxaad u malaysaa in uu wixii stiil aanu ka dhigaynin wax Soomaali wada leedahay dawladii siyaad barre wixii lagu riday waxaa ka mid ahayd oo number 2 ahayd number 1 inuu xukunku ku raagay bay ahayd number 2 waxay ahayd inuu xamar mooyaane meel kala dhisin ishuugi siyaad barre ku dhacay number 2 bay ka ahayd in muqdisho mooyaane meel kale aan Soomaalida la dhisin oo dadkii Soomaalidu ay baaba'een taasaa waxay keentay in muqdisho loo soo wada hayaamo dawladii timaada hadda muqdisho ma dhaafto halkaana balcad kama gaadho halkaana afgooy kama gaadho xamar baa hay'ad hadday timaado xamar bay fadhiisataa haddii la diraayana qabiil baa lagu diraa oo meel qabiil bay tagtaa ganacsi elsiya haddii la bixinayo qabiil buu ku baxaa haddii safiiro ama qunsullo la magacaabayo qabiil buu ku baxaa maamulka Somaliland isagoo maamul ah oo la og yahay oo halkaa qabiil ah isaaq ah oo aynu ognahay markaynu runta isu sheegno Samaroon inay qasban tahay ee aanay xorriyad haysan ayaa loo madax salaaxaya oo la baashiraya baashirkii la baashirayay ayaa wuxuu keenay maanta in ay badi iibsadaan waxa weeyaan cimri darar loo sameeyay qofka man zaada dirham carabtu waxay tiraa man zaada maadaama aan carabiyad ahay waa inaan mahmaah carab keenaa man zaada dirham zaada alhawa hal dirham hadduu kuu saa'ido noloshaada hawaa kuu saa'idaysa iyo nolol iyo future baa kuu saa'idaya inaadeer haddaynu marka aan soo hoobiyo aan soo gunaanado marka Soomaaliya ishuugeedu waxa weeye cadaalad darro kow
iyo aamin la-aad Soomaaliya inay is aaminto oo dib isu aaminto oo laabta isku furto oo maxay cadaalad ay ka shaqayso adduunyada dhici mayso mana imanayso nin Soomaaliya intuu kursi koro inuu cadaalad noqonayo oo dadkana sinaan wax ugu qaybinayo dadkana heshiisiinayo lagama yaabo divide and rule weeye Soomaalida siyaasiga Soomaalida looma ogola ninka kursiga fadhiistaa waa nin abgaal cismaana ina salaad booyba la keenay oo wad ogeed intuu xukumayay nin abgaal uu kursigaas u seereysan yahay oo xukumaya oo xiran yahay cadaalad darro weeyaan marka dhexdeena cadaalad darro ah qabiil ahaan harti ahaan hawiye ahaan habar gidir ahaan isaaq ahaan cadaalad darro dhexdeena ah iyo aamin darra naga dhaxaysa qabaa'il ahaan aamin darra anigu anoo daarooda ama hartiya ma aaminayo ninka hawiye ninka isaaqna aamini maayo ninka isaaqna waa cadowgay ninka hawiyena waa cadowgay iliidkii Soomaaliyeed ayaa liidar ka ah ayagaa beleeyar ka ah waa players gameku wuxuu leeyahay nin player ah iliidka Soomaaliyeed ayaa beleeyar ka ah dhibaatada shacabka Soomaaliyeed hayta 2030 sideenaynu u ekaanaynaa inta aynu hadda joogno kasii fool xumaanaynaa I believe 100% waxaan aaminsanahay hadda Somaliland baa go'itaankeeda laga daba ordayaa Puntlandna waa go'aysaa believe me ilaahu cimri nasiib Puntlandna waa go'aysaa maamul dawlad bay noqonaysaa halkaa fadhida oo ismaamusha Jubbaland waa go'aysaa iyaduna koonfur galbeedna waa go'aysaa Muqdishona waa go'aysaa waa beliefka anigu aan aaminsanahay waana idin soo dhigay